iyadoo muddooyinkii dambe duleedka bari ee magaalada Buuhoodle laga waday dhismaha gagaduyuureed oo abid markii ugu horeysay yeelato magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn ayaa iminka waxaa la sheegayaa in garoonkaasi uu marayo meel gabagaba ah dhismaha garoonkan oo ay bilaabeen dadka deegaanka oo kaashanaya qurba jooga ayaa waxa uu soconayay muddo sanad ah guddiga gacanta ku haysta dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle ayaa maanta waxay shir ku qabteen goobta uu garoonka ka socdo oo ku taala duleedka bari magaalada Buuhoodle shirkaasi ayaa waxa ka soo qayb galay isimo cuqaal aqoon-yahano qurbo joog ardayda iskuulada macallimiin iyo waalidiin jidada shirka ayaa ahayd in guddiga garoonka soo bandhigaan halka uu marayo garoonka iyo waliba inta uu hadhay waa kan Xasan Faarax Baad oo ah gudoomiyaha guddiga gacanta ku haysta dhismaha garoonka oo ka warbixiya halka uu marayo garoonka isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladiisii ka mid ahaa jidkii waad aragtaan sidoo uu shaqeynayo taygii uu sido iskuulkii waad aragtaan siday ciidda u kala rogayaan waxaanu ku talagalnay airportkan inuu dhammaado xajayda maanta dhoofaysay ee Boosaaso iyo Garowe iyo Hargeysa ka dhoofaysay inay ka dhoofto oo ku soo degto ayaanu ku talagalnay may dhicin shan intii aanu haynay ilaa Oktoobartii hore ilaa Oktoobartan 25 jeer buu fariistay dhaqaale la'aan buu u fariistay 25 jeerna waanu ka shaqeynay inta uu fadhiyay iyo inta uu laga shaqeynayay inta uu fadhiyay waa badan waxaan leenahay qurba joog magaalada miyi iyo magaalaba dhulbahante reer Buuhoodle ama dhulbahantoo dhani ha u halgamo airportka walaalayaal oo si degdega waxa looga qabto shan meelood marka laga dhigo meel baa hadhay marka guryaha laga reebo meesha ha loo soo dadaalo oo waxa loo qabto oo odayaasha iyo isimada iyo ciyaar iskuulkii oo aad arkaysaan hal la maqlo waxa ay ku hadlayaan iyo baahida ay u qabaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaasna halkaasi ka hadlay Axmed Cabdi Guray oo ka mid ah qurba jooga deegaanka isla markaana ka mid ahaa dadkii maanta booqday dhismaha garoonka meesha uu marayo ka faa'iidaya ee ku faanaya ee qarannimadu kaga soo baxaysa waa idinka dalkiina u soo jeesta ka qayb gala dhista waxbarta waxatiin madaxweynayaashii injineeradii baylotayaashii berito iyo dhakhtaradii himadiina kor u qaada airportka gacan siiya waa magaciinii waa jiritaankiinii waa dhaqaalihiinii dhalinyarada goldalool badan baa ka muuqanaya kuwa qaadka is-agtaagaha noqonina kuwa wakhtiga iska lumiyaha noqonina ku dadaala inaad wax barataan oo meeshiina ka soo baxdaan oo bulshada adduunka aad la tartantaan si kastaba ha ahaatee dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle oo muddo sanad iyo bilaah ka soconaya duleedka bari ee magaalada Buuhoodle ayaa hadda maraya heer gabagaba ah Maxamed Shaqalle telefishinka Universal Laascaanood